waxa tacsida iska leh oo tacsi iyo hoog iyo hirtaan iyo halkan aan uga tabinayaa nimanka la magac baxay xarakada shabaab oo maalin iyo habeen ku dhex jira dhiig faraha kula jira dad abriya ah masaakiin ah waxba aan galabsanin ilaahay wuxuu quraanka ku leeyahay waqad khaba man hamala dhulma waxa hoogay qofkii dulmi xambaarsada waxaas haddana ay ugu magac darayaan inay ka mid tahay ilaahay diintiisa bal cid ay ka argoosanayaan ma tahay cid aana u ah waxa ay sheeganayaan cid ay dilayaan ama dhibaateynayaan ma tahay cid la dili laha nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam alayhi umirtu an uqatila an-nas حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحال فريضك إن الله دقاله إلهي أنت كقريان معبود حق لو عابدين أنه جيرين الله موقين صلاة دي إيكو أوغيان زكاة إيكا بحنيان أنت هدي سميان دي قودة إيا مالكودة وإيقا إلاليين وإيقا بدباديين إلا حق لا إله إلا الله موقين أما حق إسلام كم موقين والزكاة دي iyo wixii la halmaanay su'aashaas weydiinta waxay tahay dadka hiiraan jooga dadka galguduud jooga reeb baxdo meesha la yiraahdo cad kibir dadkaas maxay galabsadeen oo dhiigooda lagu baneystaa ma ilaahay bay qiri waayeen masalaadii tukan waayeen ma zakadii bay diideen inta midna ma taalo ma u leedahay adigu authority xaqsi ma u leedahay xitaa hadii ay sameyn waayaan inahaas inaad kula xisaabtanto oo aad ku ciqaabto jawaabtu waa maya saadarteed waxay duulaanka ku qaadeen nimankaas waa dulmi waxay ka been sheegeen waa aayaadka ilaahay waxay ku been abuurteen waa nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi waxay suurad xumeeyeen waa diinta islaamka waxay muuqaalkiisa tashwiih ku sameeyeen oo ay dhalan rogeen oo ay dooriyeen waa wadankii ina ka dhaxeeyay ee Soomaaliya lahaa marka intaas oo dhib ay isu geysteen marka iyaga mudan runtii in loo tacsiyeeyo oo loogu tacsiyeeyo dulbiga ay geysteen ciqaabta ka ratimaysa adduunyo aakhira la cid ay sugayso ayaga weeyaan wuxuu yiri ninkii Ali bin Abi Talib laga soo wariyaa inuu yiri ama wallahi inna adh-dhulma shu'mun wala zala al-musii'u huwa adh-dhalumu ila ad-dayan yawm ad-din namdi wa 'inda Allahi tajtami'u al-khusum yani waxa weeye ilaahay baan ku dhaaranay wuxuu yiri dulmigu waa wax aad iyo aad u xun oo ayaan darro ah oo liita weeye kana zuuli maayo qofka dambiga iyo gafka ku jira ee caadaystay inuu yahay qofka isagu dulman ee dhiban ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa la aadi doona waxaana lagu kala garbixi doona Allah hortii